halkani waa London laanta afka Soomaaliga ee BBC da oo aad ka dhageysanaysaan wajadaha miciyaha gaagaaban kuwa miciyaha dheer iyo waliba FM-yada kala duwan oo nagala xidhiidhan akhyaartana dhageysatay waa habeenimo sabti ah kuna soo dhawaada warkii dunida iyo Abdinur Batanid Abdullahi Haji warka madaxdiisii warkii oo kooban oo komba ku dhex jiro oo laba kaclaynaya aqalka dawladda waxaa ka soo baxay laba kudkado oo commandos ah laba bakeeri baa ganka la qabtay hore loo tuuray laba baaquli baa baroon lagu qabtay kuwaasi hase yeeshee yani falax abood ilaa ka raali noqdo intaas wuxuu ahaa warka madaxdiisii haatana isagii oo fidsan bulaacad fatahaday iyo dhoobas warraacday ayaa ku fatahaday suuq weyn ku yaalay bartamaha magaalada Jigjiga kadib markii halkaasi ku dilaacay bayb weyn oo marayay dhulka hoostiisa daba baybkan ayaa la sheegay inuu ahaa mid goobtaasi la geliyay sanadkii hore fayraska hargabka shimbiraha ayaa 12 qof ku dilay dalka Shiinaha iyadoo la sheegay in boqolaal kalena ay yihiin bukaan socod daba shacabweynaha dalkaasi ayaa iyagu mudaharaad ballaanan banaanada isla taagay kadib markii ay dawladda Shiinuhu mamnuucday dhammaan cunitaanka hilibka shimbiraha taasoo ay yiraahdeen waxay sababtay inuu kor u kaco qiimaha hilibka raha jiirka iyo waliba masaska halka nagala socotaan waa meel cidla ah qarax weyn ay shirka ka dhacay magaalada Nairobi warkana waxaa noo soo diray wariyaheenna BBC da qarax weyn ay shilay ka dhacay magaalada madaxda dalka Kenya Nairobi meel u dhow xarunta weyn ee yaqaano Kenyatta Conference Center halkaas ay ku shireen madaxweynaha dalka Kenya Daniel Arap Moi iyo madax sare oo kamid ah baarlamaanka dalka Kenya qaraxan ayaa loo maleynayaa inay ka dambeeyeen afar wiil oo dhalatay الجزيرة زنزبار أحمد محمد نيروبي kaasi wuxuu wariyay BBC da oo noogu wareemay khadka telefoonka isagoo jooga magaalada Nairobi iminkana dhanka sportiga iyo Saciid Cali Muuse ama hadsanid Abdinur hadda ku bilowna horyaalka Ingiriiska kooxda Manchester United iyo kooxda kale ee Liverpool ayaa isku helay garoonka Old Trafford halkaas oo ciyaar xiiso badan kadib ciyaartu ku dhamaatay 2-2 barbardhac laga kale kooxda Arsenal ayaa iyagu kooxda kale ee Tottenham cabihiin isla markaana ay dariska yihiin waa Tottenham ayaa isku heleen garoonka Highbury ciyaartaas oo iyaduna 1-1 ku dhamaatay Abdinur dhanka kale kooxda Chelsea ayaa iyagu halkaas ku martiqaaday kooxda Manchester City isla markaana ciyaar xiiso badan kadib ciyaartu ay ku dhamaatay 3-3 barbardhac haddana gudubna dhanka Spain ciyaarta toddobaadkan ugu xiiso badneed Abdinur waxay ciyaarta dhexmartay kooxda Barcelona iyo kooxda kale ee Real Madrid isla markaana ciyaartaasi oo aad u xiiso badneed ayaa waxay ku dhamaatay iyaduna barbardhac 2-2 kadib markii laacibka weyn ee Lionel Messi uu shabaq ku hubsaday 2 gool dhanka kale laacibka isba ka yareysan ee Cristiano Ronaldo ayaa isaguna dhankiisa 2 gool shabaq ku hubsaday waxa wada sugno waa ciyaarta dambe El Clasico iyo Santiago Bernabeu haddana aadna dalka Calcio Italiano Abdinur labada koox halka garoon ku wada ciyaara waa AC Milan iyo Inter Milan ayaa isku helay garoonka weyn ee San Siro balse arrinta ugu yaab ka badneyd kadib markii taageerayaasha labada kooxood ay birta iska asleen taasoo sababtay in ciyaartu ay halkaasi ku hakato iyadoo maraysa eber isla markaana la filayo in dib loogu celiyo 2 toddobaad kadib Saciid Cali Muuse BBC Roma Batanid Saciid dhageystayaal barnaamijkii toddobaadka waa naga inta aan hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo shimbiraha haddii loo diiday ma iska cunaan hilibyaasha kaleeta laakiin saxo dooliya wuxuu noqdaa aad taagan tahay qaali meesha ka noqday dooliga qaali Blackburn iyo kooxihii hore Nottingham Forest waxaas mira la cunay dadka u maleynaya kooxo hore u jiri way hadda ku soo darlay Lazio Parma Bari kooxihii hore u jiri way dadka Real oo ciyaarada adigeed Bridge Line waade may ya badila shan iyo ever